dowladda Itoobiya markii ugu horeysay waxa ay sii daysay warbixin dheer oo ay sheegtay inuu yahay qorshaha TPLF ay ka lahayd dalka Itoobiya iyo macluumaad faahfaahsan oo ku aadan dagaalka ay ku jirto waqtigan sida ay ku qiimeysay warbixinta oo lagu baahiyay bog internet oo ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxa ay ka kooban tahay dhowr qaybood oo muhiim ah qaybta koowaadna waa 200 oo bog oo dhammaan lagu qoray xogo muhiim oo ay Itoobiya sheegtay in laga keenay TPLF iyo Maqale wasaaradda arrimaha dibadda ayaa tabinaysa in xogtan markii hore ay ku qorneed afka Xamxaariga dib soo loogu bedelay luqadda Ingiriisiga qaybaha ugu muhiimsan ee warbixinta waxaynu ka soo dheeganay kuwaas oo saameyn ku leh arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika si guud warbixinta waxa loo adeegsaday erayo adag oo ku wajahan waxa ka dhaxeeya Itoobiyaanka gudahooda TPLF Tigreeguna ma qarsan inay doonayso hadda Itoobiya aan awood lahayn oo kala daadsan ama iyada oo taliso oo dib u qabsata qaybaha warbixinta waxa lagu cadeeyay inaan marnaba Tigreey ogolaan doonin in qof ka soo jeeda siyaasadooda uu qabto talada Addis Ababa iyo gargartan xataa ay ka galayaan ajandahooda Tigreey sida muuqata taariikhda la qoray xogtan ayaa 10 Oktoobar ee sanadkii dhamaaday ee 2020 maalmo ka hor inta uusan bilaaban dagaalka waxaana dhammaan lagu ururiyay istaraatiijiyada loo marayo in TPLF ay dib u qabsato guriga ku yaala kilomitir 4 ee Addis Ababa loogana taliyay Itoobiya xogta qarsoodiga ah ee Itoobiya ay sheegtay inay lahayd TPLF bilowgii waxa looga hadlay dhacdooyinka cusub iyo isbeddelada ka socda Geeska Afrika si qoto dheer ayaa loo darsay dagaal wakaaladeed ka socda hardanka biyaha badda cas iyo sida dalalka igad ku midaysan ay dhexda uga jiraan dagaal ka yimid dalalka khaliijka warbixinta oo sii socotay waxa lagu sheegay in quwadaha waaweyn ay hadda loolankooda mar kale ku soo jeediyeen gobolka magacyada Shiinaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa lagu xusay cutubyada warbixinta ee koobaad sanado badan waxaan aragnay xaaladda isbeddelka ee geeska ee xaaladda juqraafi iyo isbeddelada badda cas oo saameyn weyn ku leh adduunka xiisadaha iska horimaadyada iyo binaantinimada geeska ayaa sii kordhiyay xaaladda gobolka badda cas ayaa si toos ah uga sii daraysa tan iyo isbeddelkaas isbeddelka geopoliticska badda cas ayaa Geeska Afrika ka dhigaysa aag dhibaato oo sii murjinaya dhibaatooyin waaweyn oo hore u jiray maadaama xaaladaha gudaha ee wadamada geeska ay isbeddeleen xiriirada wadamada waaweyn ayaa sidoo kale ayana isbeddelaya danaha dawladaha waaweyn iyo dawladaha khaliijka ee dalalka jaarka ayaa si togan iyo si tabanba inoo saameynaya sidaas daraadeed xiriirka wadamada jaarka kuma xirno oo kaliya danahooda qaran ee waxa uu kale oo la xiriira kan dalalka waaweyn iyo wadamada Carabta waana ogaanay in isbeddelka halkan uu muhiim u yahay xiriirkeena ayaa lagu yiri warbixinta oo la sii waday loolanka arrimaha diinta siyaasadda dhaqaalaha diblomaasiyadda militariga iyo amniga ayaa khatar weyn ku ah badda cas iyo Geeska Afrika dalalka ku yaala geeska ayaa dhinac ka ah dhibanayaasha tartanka u dhaxeeyo wadamada khaliijka dhinaca kale waxa ay tartanka u isticmaalayaan xalinta mashaakilkooda siyaasadeed iyo dhaqaale ee gudaha sidaa daraadeed geeska iyo badda cas ayaa ah meelaha ay ku dagaalamayaan kuwa xoog badan geeska waxa lagu khasbayaa inuu dhinac ka raaco dhanka kale halgankii lagu doonayo lagula wareego gacan ku haynta badda cas ee gacanka macmiilka ayaa hadda xoogaystay inta badan dawladaha xubnaha ka igad ayaa gacanta u galay dawladaha Carabta iyaga oo raadinaya taageero dhaqaale iyo dal ay saaxiib yihiin jeclaanta gudaha ee ururka igad ayaa abuuray sidoo kale ka shafayna faragelinta ciidamada shisheeye ayaa lagu yiri warbixinta soo galida Suudaan ee Mareykanka ayaa la amaanay danta TPLF inuu fulinayo ayaa lagu sheegay warbixinta waxa la adkeeyay in la amaano Suudaan shaqada ay wado iyadoo lagu sifeeyay tallaabooyin muhiim ah sida ay u caawinayso Tigreey Abiy iyo Djibouti maxay ka tiri warbixintu xiriirka Djibouti iyo kala taliyaha Abiy wali ma mid xun oo aan wax horumar laga sameeyay ama cusub aan lagu korin xiriirkooda waxtar kale ee ay Djibouti Shiinaha la leedahay awgeed mowqifka aan ka wada leenahay asiyaas oo warka iyo aragtidooda halgankayagii 2 sano ee la soo dhaafay ayaa ka dhigaysa Djibouti inay ku dadaasho inay nala shaqeyso si adag waliba sidaas ayaa lagu yiri warbixinta isla halkan waxa kale oo lagu xusay Soomaaliya iyo sida ay TPLF u arkayso inay ku leedahay saaxiibo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xiriir la leh Abiy sidii uu ku bilowday markii Abiy yimi xukunka June 2018 iskama bedelin ilaa hadda laakiin ma jirto cid doonaysa inay Abiy kala shaqeyso gobolada Soomaaliya Puntland Somaliland iyo Jubbaland dhammaantood waxay ka soo horjeedaan xukunka Abiy Ahmed rabitaankooda inay nala shaqeeyaan oo nala xiriiraan ayaa weyn ayaa lagu yiri warbixintan xiriirka Abiy iyo Kenya ayaa sidoo kale mugdi galay
guud ahaan Abiy wax xiriir ah oo wanaagsan kuma leh gobolka taa beddelkeeda dalal badan oo jaar ah ayaa doonaya in nala shaqeeyaan oo waxa soo baxaya xaalada rajo leh ayaa warbixinta lagu yiri Eritrea ayaa sidoo kale warbixinta looga hadlay Eritrea waxaan ku qiimeynay xiriirkayaga dib u eegidii ugu dambeysay qiimeynta waxaa lagu sheegay in siyaas uu ku lug leeyahay Ethiopia ayna si wada jira uga shaqeynayaan isaga iyo Abiy wiiqada TPLF iyo Tigray sidoo kale waxaanu qiimeynay Abiy iyo Afwerki inay samaysteen waji siyaasadeed iyo military si ay noo burburiyaan waxay ka shaqeynayaan madbaa in badbaadada midba kale ay ku xiran tahay badbaadada kan kale waxay isku dayayaan inay qabtaan hawlo adag oo kala duwan oo qaran dumisa iskaashi military shabakad sirdoon wakiilada amni iyo shabakada dil inkastoo aysan ku guuleysan haddana waxay isku dayayaan intii karaankooda siyaasi Afwerki oo jira oo kartile waxa uu ka shaqeyn doonaa burburinta TPLF markaas siyaasi wali waa cadowga koobaad iyo kan ugu weyn ee hadda aanu leenahay ayaa warbixinta lagu yiri aan hubayno jamhad mar kale waa cutub kale oo ah qorshaha TPLF ee ku wajahan Eritrea waxa si soo taraya guuxa dadweynaha ee ka soo horjeeda siyaasi Afwerkiga Eritrea kooxaha siyaasaddu waxa ay leeyihiin waa inaan la shaqeynaa TPLF iyo xukuumadda Tigray si aan u helno dhammaan waxyaabaha waaweyn ee ay tahay horumar inaan ka sameeyno waa inaan saldhigyo ciidan ku samaysanaa gudaha TPLF deegaanadeeda si aan halkaas uga soo jamhadayno horay waxa ay u ahayd arrin muhiim ah oo khiyaamo ahayd la shaqeynta wayanaha hadda way bedelayaan maankooda ayay leeyihiin Eritreaanku warbixinta ayaa sidaasi lagu yiri istiraatiijiyadda saddexaad ama qaybta saddexaad ee istiraatiijiyadda wada xaajoodyada istiraatiijiyadda cayrinta cadawga ayaa ciwaan looga dhigay kooxaha mucaaradku waxa ay doonayaan inay dhisaan sarreyn siyaasadeed iyo nabadgelyo marka la eego daciifnimada la midka ah midda hadda taagan waa inaan ka faa'iidaysanaa tanina waa sababtoo ah wada xaajoodyadu waa inay lahaadaan cilmi xigmad iyo doodid marka waa in la sameeyo guddi isku dubarida arrintan marmarna soo dejiya xeelada kala duwan heer ahaan istiraatiijiyadda xaqiijinaysa in dadka Tigray oo fududeeya jabka cadawga ay ka fog yihiin gargartan hubinta go'aamada sameeya nabadgelyada muddada dheer iyo danaha ismaamulka oo aan la qaadan ayaa lagu yiri warbixinta qaybta afraad waxaa ku jirtay bilowga istiraatiijiyadda lagu tabinayo militariga Ethiopia dagaalka aan hadda wajahayno waxa uu leeyahay muuqaalo iyo qaabab badan dagaalku wuu sii xoogaysay tan iyo markii uu bilowday khilaafku dagaalka ka hortagga iyada oo la adeegsanayo aaladaha jilicsan ayaa ka dhigaysa duulaan military inuu lama huraan nooc kasta oo yahay uu noqonayo waxaa jira waxyaabo badan oo la samayn karo si loo soo afjaro dagaal military waxaan leenahay dagaal ku lug leh tallaabo military asal ahaan waxaanu leenahay howlgal aan ku difaacno dagaalka si firfircoon oo waxtar leh dhammaan waa inaanu kordhinaa taageeradeena military magaca difaaca kooxaha cadawga waa inuu ka urursado xooggiisa u yimaado inuuna baabiyo waa inaynu abuurno fursado aan ku halaagno ama ku daciifino sidaa darteed waa lama huraan in la qaado weerarada military iyo kuwa istiraatijiyadeed oo ay ku jiraan dheeligelin cad oo ah cadawga in lagu burburin karo ayaa lagu yiri istiraatiijiyadda qoraalka sida la sheegay waxaa laga helay maqale Tigray TPLF markii weerarka lagu qaaday waxaana la jaangooyay oo la qoray 10kii bishii Oktoobar ee sanadkii idlaaday waxa kale oo uu ka hadlayaa qaybta koobaad qaybo waaweyn oo la xiriira danaha fog ee ay leeyihiin TPLF waxayna xoogga saarayaan dadaalada muhiimka ee ku aadan sidii ay u noqon lahaayeen kuwa guuleysta oo gobolka ku xoogan warbixinta qaybta koobaad oo ka kooban 200 oo bog ayaa qaybaha ugu muhiimsan ay ahaayeen arrimahaasi